asalaamu calaykum daawadayaal kusoo dhawaada channelka Mahadai Media fadlan haddii aad inagu cusub tahay nagu soo biir oo riix halka ay ku qoran tahay subscribe si video walba oo aynu soo dhigno YouTube-ka si dhaqso ah oo ku soo gaaro fadlan riix halka ay ka muuqato kambaleelka. Ciidamada Burundi ayaa maanta lagu wadaa in ay ka baxaan qaybo ka mid ah goobaha ay kaga sugan yihiin gudaha dalka Soomaaliya. waxaa maanta oo ay taariikhdu ku beegan tahay 28 bisha 2019 lagu wadaa in ciidamada AMISOM gaar ahaan kuwa Burundi ay baneeyaan kuliyadii hore ee Jaalasiyaad oo ku taala wadada warshadaha ee magaalada Muqdisho. qorshaha ka bixitaanka ee kuliyada Jaalasiyaad ee ciidamada AMISOM gaar ahaan kuwa ka socda dalka Burundi ayaa socotay bilooyinkii ugu dambeeyay kadib markii dawladda ay ku wargelisay in ay baneeyaan goobahaasi. isla markaana dhowr jeer ee hore ay kormeereen madaxda ugu sareysa ee dawladda Soomaaliya. Francisco Madera oo ah madaxa ciidamada AMISOM mar uu dhawaan uu booqday kuliyada Jaalasiyaad ee ay ku sugan yihiin ciidamada AMISOM gaar ahaan kuwa ka socda dalka Burundi ayaa waxa uu sheegay in agabka difaac ahaan ay u isticmaali jireen ciidamada Burundi ee Jaalasiyaad fariisinka ku lahaa aanan laga qaadi doonin taa beddelkeedana lagu wareejinayo ciidamada Soomaaliya ee halka fariisinka ku yeelan doona. AMISOM ayaa dhowr jeer ee hore waxa ay u baneeyeen fariisimihii ay ku lahaayeen jaamacadda Gaheer iyo Stadium Muqdisho halka oo ay in muddo ah ay deganayeen.